ninkan aad u jeedaan waxaa magaciisa la dhahaa Ustaad Khalid wuxuu u dhashay dalka Yemen waana maamule ka mid ah maamulayaasha dugsiyada meesha ku yaala wadankaasi Yemen habeenada ka mid ah ayaa waxa uu soo dhacday fariin yar oo kooban oo loo soo diray oo ahayd maata shahiidan dhimo adiga oo shahiid ah Ustaad Khalid wuxuu yiri fariintaas kadib waxaan ka bixi waayay guriga muddo 7 ah sidoo kalena waxaan u yeertay nin injineer ah oo farsamo yaqaan ah oo iga bedela albaabka guriga ina sameeyo albaab bir ka samaysan muddada isbuuca ah iska daa wax kale xitaa albaabka guriga hadii la igu soo garaaco maanan furi jirin ee caruurta ayaan u diri jiray ilaa laga gaaray maalin aan banaanka wax uga baahday oo ay ka fursan weeday marka ayaan mid aan dhalay hore u soo watay anagoo suuqa joogna ayaa waxa iga hor yimid arday ka mid ah ardaydii iskuulkayga aan maamulaha ka ahay wuxuuna igu yiri xagee ka baxday ustaadow xagee ka baxday macalinow fariintaydiina igama aadan soo jawaabin waxaan ku dhahay fariintee wuxuu dhahay fariintii aan ku soo diray isbuucii hore waxaan ku dhahay mata shahaadad yani goormeel heli kara ama la qaadanaya shahaadooyin maalintaas wixii ka dambeeyay Ustaad Khalid wuxuu mar walba sitaa qori AK47 ah macal qasnadiisa oo dhameystiran isagoo oo wacad ku maray in dadka qoraalka qalda ee haddana isla sii saxan inuu adduunkan ka cirib tiri doono